Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most gracious, the most merciful. Waxaan doonayaa inaan halkan ka salaamo alhambaliyage the independent Republic of Somaliland. Halka maaragta waxaan ku daray independent of Republic of Somaliland. Markii hore waxaan jiray Somaliland, imika waxaan leeyahay Republic Independent of Somaliland. waan idin salaamayaa kulligiin waxa adduunka jooga ayna jecel iyo Somaliland waxa ku noolba. waxaan doonayaa maanta inaan halkan inuu ka soo galo aan idin xasuusiyo ma garanaysaa berigii aan soo ogaaday shirqoolka Djibouti aan ku qayliyey aan dadkii ka kacay Djibouti waa cadowgeyga number 1 Kenya weeyaan ugu horeeya ninka Cumar Geele wuxuu la shaaroweynaa weligiiba inuu dhibaatada Soomaaliya halkaa ku soo qariyo Somaliland ma uga jeedaan ugu soo qariyo wax alla waxa aynu ku sameeyna ma jirto subxaanallah xaasidnimada moogtay qofka xaasidka ah jannada ma galo xaasidku ilaahay marka hore cadaabtu geeyaa oo kaga soo meydhaa cudurka kaga jira wadnaha iyo qalbiga waxaan doonayaa inaan xasuusiyo irsaaqada ilaahay uu qoray maalinta daltay ayuu ku qoray waynu usmanahay Somaliland dhibaato kuma hayso weligeedna kuma haynin Djibouti Somaliland dhibaato kuma haynin weligeed waa walaalaheen waan jeclayn laakiin waxaynu nagaan cadawgeeni israafka Israa'iil wuxuu dibadda u soo saaray cadawgeeni oo dhan waana fiicanta cadawgaaga kaad og tahay baa wanaagsan kaanad ogeyn baa xun marka haddii ilaahay ka dhigo imikana Somaliland waa inay u soo jeesataa sida isaga dhicin lahayd cadowgeeda Somaliland imika dadaalkeeda waxaad saartaan wax alla wixii Djibouti ka soo horjeeda anfarta iyo wax alla wixii nacabninka inuu la kursiga uu jecel yahay laga qaado halka ma soo dejinaynaa awdal ayaynu soo dejinaynaa war ninku nabca dagaalkii halka ka dhacay Boorama isaga ka dambeeyay halka masaakiintaas ku dhimantay walaalahayga Boorama ku dhintay ilaahay naxariis jannada ka waraabiye xaqdar ku dhintayna waxa ka dambeeyay Djibouti kowdhe sharqool dambe inaguma samayn karo waa soo ogaaday imika teleefankaygii uu joogsan waayay waryaahe sharqoolkii aad ka sheekeynaysa Djibouti aad berigii soo saartay YouTube-ka wata imka cadaatay sanqul ulu beeman u sheegaya dadka aan jecelahay Somaliland jooga inaan la taliyo ilaaliyo Soomaha in xaq iyo waajibkayga inuu yahay inaan walaalahayga ilaaliyo wadankeena alxamdulillah wa ta'ala itraafay cadowgeeni weynaga ogaanay tawakka wa salaamu calaykum